degan yahay ganacsiga gaadiidka kulli waa socdaan guud ahaan ka socda dhaqdhaqaaq wanaagsan oo dadku aad iyo aad ugu diirsadeen oo farxad leh. bal waxaad inooga warantaa howlaha nadaafadda ayaad magaalada ka wadaan. waa saaka 12 saacad markay ahayd magaalada jawiga magaalada roobab ayaa ka daya khafiifa. waxaan bilownay 2 saac subaxnimo nadaafadda guud ahaan magaalada bartamaheeda oo bilcadar ay ka jirtay dhibaatooyinkii 4 ka dhacay awgeed ayaan soo qaadanay inaan nadiifino. waxaan la qayb qaatay dhalinyaro ilaa gaaraysa 7 ilaa 6 gaaraysa oo dhalinyarada magaalada Jigjiga ah oo qaab iyo shaqaalaha dawladda marka qaab voluntary ay nagula shaqeynayeen. shaqadu si fiican baa maanta loo qabtay. baabuurta iskarooyinka naga qayb qaadanayay si fiican oo aad iyo aad ugu farxo oo dadku muwaadinimadooda ay ku cabirayaan ayaa si fiican looga qayb qaatay saaka ahayd. burburka soo gaaray magaalada marka intuu leeyahay qaybo ka mid ah magaalada waxaad moodaa inay fayow yahay laakiin bartamaha magaalada burbur soo gaaray. waxaynu ognahay in dadkaan Soomaalida ahayn iyo qaar ka mid ah Soomaalida ay dirreen haatan la sheegayo in iska kaashanayaan nadaafadda. marka arrintaasi sidee ku suurta gashay? waa dadku markii hore way wada deganaayeen baa laba guri isla degan baa colaad dhaxta wax keenay ma jirin bay ahayd. dadku way wada deganaayeen laakiin shoog yar baa dhacay. culimada diinka dadka diinaha kala haysta waa la isu tegay. garaadadii iyo suldaanadii baa kala dhex galay oo heshiisiyey. colaad dhaxta la meeshin jiray shoog baa meesha ka dhacay iyo argagax waa la kala naxay ahayd. laakiin wax heshiisaas ma sihayna waa la isu yimid. war maxaa hadal isweydiiyey war magaaladii ma aha war wuxuu dhan baa la isweydiiyey. dadku markaa culimadii baa ku dhex jirta. dadku la booqanaya raashin baa loo diinaya. dadka dukaamada ku bareen marka dadku aad iyo aad wada socdaan oo waa nabadgelyo walaal. dadaal fara badan dadkii sameeyeen waan ugu mahadcelinaynaa. dadka magaalada ku dhaqanaya ugu horeeyaan garaadada iyo mas'uuliyiinta odayaasha culimada diinka aad walaal iyo aqoonyahanka wax la yaraysan ma jiro. dadaalka ruuxa ka sameeyay taagnaaba ka bilaabay.